iga tag cunugaaga intuusan kugu caasin adiga ayaaba ku caasideedaba awlaada waa nicmo ilaahay ku siiyey nicmadaasna waxaa lagaaga baahan yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati ya ayuha alladina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axbaabi ilkiraam waa idin salaam walaalahayga qaaliga meel walba adduunka aad ka joogtiin waa walaashiina maryama soo dhawaada ayaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada walaal khayrka idinla jecel insha Allah walaalahayga qaaliga maanta waxaa idin soo gudbinayaa 8 arimood ama 8 xuquuq ay kugu leeyihiin ilmahaaga waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin sideedaba awlaada waa nicmo ilaahay ku siiyey nicmadaasna waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku shukrisid ilaahayna wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum nicmooyinka ay idin siiyey haddii aad ku shukrisin waa idin siyaadinaya ayuu leeyahay ilaahay saadaradeed waxaana looga baahan yahay walaalahayga qaaliga ilaahay nicmadoona siiyey inaan ku shukrino aana ilaalina ayaana looga baahan yahay awlaadana waxay ka mid yihiin nicmooyinka ilaahayna siiyey nicmada ugu weyn ayay ka mid yihiin awlaada saadaradeeda marka walaalayaal caruurteena xaggooda waxaa naga saaran waajibaad oo waxay nagu leeyihiin xaquuq ayay nagu leeyihiin xaquuqdaas waxaana looga baahan yahay inaan kasoo baxno saadaradeed marka walaalayaal ilmaheena xaggooda waxaa naga saaran mas-uuliyadaasna inaan kasoo baxno ayaana loo baahan yahay waa midna la weydiin doono qiyaamaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qof walba idinka mid ah waa raaci waxaana la raacay wixii mas'uul looga dhigay oo waa la weydiin doonaa maalinta qiyaamo ilaahayna wuxuu ku leeyahay quraankiisa yaa ayyuhalladina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara kuwii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo nafaftiina iyo eheladiina waxaad ka ilaalisiin naar saadaradeed marka walaalahayga qaaliga waxaa la doonayaa inaad dareeno waajibaadka naga saaran ubadkeena oo aan ilaalino waayo ayaga waxay nagu leeyihiin xuquuq ayay nagu leeyihiin anagana waxaan ku leenahay xuquuq laakiin xuquuqdeena iyo xuquuqdooda waxaa horeyso xuquuqdooda markaa tooda toosino oo aan kasoo baxno xuquuqdooda ayagana waxay kasoo baxayaan xuquuqda anaga aan ku leenahay saadaradeeda marka waxaan doonayaa walaalahayga qaaliga inaan idiin soo gudbiyo 8 xaq oo cunugaaga uu kugu leeyahay waajibna ay kugu tahay inaad kasoo baxdid 8daas arrimoodna waxaana looga baahan yahay inaan fahanno aan dhaqangelino qodobka ugu horeeya haddaan u gudbo ayaa wuxuu yahay ikhtiyaaru saalixa inaad u doortid cunugaaga ama ilmahaaga inaad u doortid hooyo wanaagsan ama aabbo wanaagsan waayo hooyada wanaagsan waa aas-aaska bulshada hooyo walba wanaagsan ilmaha ay dhasho waxay noqdaan uwad bulshada anfaco uwad wanaagsan ayay noqdaan oo baariyaal ah marka hooyada wanaagsan waa laf-dhabarka bulshada sababtoo ah waxay u taagan tahay ilmaheeda inay anfacaan ilmaheeda markay anfacaanna bulshada ayay anfacayaan oo waxay baraysaa diinta ayay baraysaa wanaagga ayay baraysaa ixtiraamka iyo wax walba wanaagsan ayay cunugaas ku tarbiyeynaysaa marka qodobka ugu horeeya waxay tahay waa inaad u doortid cunugaaga hooyo wanaagsan hooyo saalixad ah inaad u doortid ayaa lagaaga baahan yahay qodobka labaadna waxay tahay ikhtiyaaru ismul xasan ilmahaada inaad u doortid magac wanaagsan cunugaaga waa inaad u bixisaa magac wanaagsan sababtoo ah magaca aad cunuga u bixinaysid saameyn ayuu ku yeelanayaa magacyaha hadda soo baxeen oo meelay ujeedaan iyo meel kaleba aan la kala garanaynin wuxuu yahayna aan la kaseenin cunugaaga markaad u bixisid cunugaaga marka halkeebaad u jihaysay haddii xataa aad magaciisa u toosin weysay marka ma wanaagsan cunugaaga inaad u bixisid magacaan u qalmin waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad u bixisid magac wanaagsan sida saxaabiyaadka magacyahooda dadkii saalixiinta ahaayeen oo wanaagsanaayeen nabiyaasha magacyaashooda inaad u bixisid ayaa loo baahan yahay si cunugaaga magacaas uu saameyn ugu yeeshto magaca u bixinaysid wanaaga uu xambaarsan yahay si uu saameyn ugu yeeshto cunugaaga waxaa loo baahan yahay magac wanaagsan inaad u bixisid qodobka labaadna waxay tahay magac wanaagsan inaad cunugaaga u bixisid saadaradeeda marka walaalahayga qaaliga aan ka fiirsano ilmaheena magacyaha u bixineyno waxaana looga baahan yahay inaan u doorno magac wanaagsan qodobka saddexaad ama xaqa saddexaad oo cunugaaga kugu leeyahayna waxaa ka mid ah at-tarbiyatu al-iimaaniya waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad ku tarbiyeysid tarbiyatu al-iimaaniya tarbiyo ku saleysan iimaanka iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka islaamka guud ahaan waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga
inaad ka dhistid dhinaca tarbiyada. waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad ku tarbiyeysid xagga iimaanka, xagga xishoodka, xagga amaanada, xagga geesinimada, xagga runsheega iyo ixtiraamka inaad ku tarbiyeysid ayaa lagaaga baahan yahay. waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad ka dhistid xagga ruuxda iyo jismiga, oo aad ku tarbiyeysid tarbiyo midda ugu wanaagsan inaad cunugaaga ku tarbiyeysid. sababtoo ah anaga waxaan ka dhisnaa awlaadeena xagga jismiga ayaan ka dhisnaa, oo waxaan ilownaa ruuxdiisa ayaan ilownaa. waxaa loogu baahan yahay oo ugu weyn oo aad ka dhistid loo baahan yahayna waa xagga ruuxda. ruuxdana wax kale kuma dhismato ee waxay ku dhismataa ayaa waxay tahay waxyiga ayay ku dhismataa. waxyigana waa kitaabka iyo sunnada. saa daraadeed marka walaalayaal ilmaheena aan ka dhisno xagga iimaanka, tarbiyo wanaagsanna aan siino. kaasina waa qodobka 3 ama xuquuqda 3 uu kugu leeyahay cunugaaga. qodobka 4 ama xaqa 4 uu kugu leeyahay cunugaaga waxay tahay an-nafaqa. waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad ka fikirtid nafaqadiisa, raashinsiiskiisa, caafimaadkiisa, waxbarashadiisa, wax walbo asaga ku saabsan, qarashaad walbo cunugaas ku kacayo waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka fikirtid. wax walbo asaga ku kacayo ayaa lagaaga baahan yahay, sababtoo ah sida adiga aga fikiraysid cunugaaga aad wax walba aad ugu fikiraysid cid aga fikiraysa ma lahan. taasna waxay saaran tahay waa adiga. marka isku day cunugaaga inaad ka fikirtid jismigiisa iyo ruuxdiisaba. taasina waa qodobka 4 ama xaqa 4 uu kugu leeyahay cunugaaga. qodobka 5 ama xaqa 5 uu kugu leeyahay cunugaaga waxaa kamid ah al-ihtimaamu bit-tacliim. inaad ihtimaam gaar ah aad u yeelatid cunugaaga waxbarashadiisa, khaasatan midda diinta ah. aad ka dhigtid cunugaaga waxbarashada, aad la socotid waxbarashadiisa, maadiga, midda diiniga ah iyo midda maadiga ah. xoogana aad saartid midda diiniga ah, sababtoo ah cunugaaga markaad kula dadaashid midda diiniga ah loo faa'iido way leedahay. adduunkana wuu ku faa'iidayaa, aakhirana wuu ku faa'iidayaa. laakiin markaad kula dadaashid midda maadiga oo kaliya waxay anfacaysaa adduunyada oo kale ayay anfacaysaa, aakhirana ma anfacayso oo khasaare ayaa ugu sugnaanayso. marka waxaa loo baahan yahay cunugaaga labada meelba inaad ka dhistid, maadigana inaad ka dhistid, diinigana inaad ka dhistid, si uu labada meelba uu munaafacaad oo aga helo cunugaaga ayaa loo baahan yahay. marka waxaa lagaaga baahan yahay muhiimad gaar ah inaad iska saartid cunugaaga waxbarashadiisa, khaasatan midda diiniga ah. taasina waa qodobka 5 ama xaqa 5 uu kugu leeyahay cunugaaga. qodobka 6 ama xaqa 6 oo cunugaaga kugu leeyahay waxaa kamid ah al-i'aanatu cala al-khayr. inaad cunugaaga kula kaalmaysid khayrka inaad mar walba aad fartid, khayrka aad garab ku siisid ayaa loo baahan yahay. wax walba wanaaga inaad garab ku siisid, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala al-ithmi waalcudwaan. ilaahay wuxuu leeyahay wanaaga iyo taqwada iskugu kaalmeeya, ha iskugu kaalmeynina dembiga iyo cudwaanka ha iskugu kaalmeynina ayuu leeyahay. saa daraadeed waxaa lagaa doonayaa cunugaaga inaad kaalmo kula noqotid xagga khayrka, inaad kaalmo ugu noqotid ayaa loo baahan yahay. saa daraadeed marka waxaa lagaa baahan yahay cunugaaga inaad khayr kula kaalmeysid, sida salaada tukashadeeda inaad la wanaajisid aad la kaalmeysid ayaa loo baahan yahay. quraan akhriska, birul waalideynka iyo saaxiib wanaagsan inuu sameysto inaad kula kaalmeysid ayaa loo baahan yahay. waayo cunugaaga markasta markaa la talinaysid oo khayr aa kula talinaysa oo garab aa ku siinaysa khayrka, qalbigiisa ayaa soo jiidanaysaa oo wuu ku jeclaanayaa. saaxiiba adiga ahayn ma yeelanayo cunugaaga markaad mar kasta soo jiidanaysid. marka waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga khayrka inaad kula kaalmeysid ayaa loo baahan yahay. taasina waa xaqa 6 uu kugu leeyahay cunugaaga. qodobka 7 ama xaqa 7 uu kugu leeyahay cunugaaga waxaa kamid ah al-musaawaatu bayna al-abnaa. waxaa lagaaga baahan yahay ilmahaaga inaad sintid xaqooda, hal aad ka dhigtid. xagga siismada inaad ka sintid ayaa loo baahan yahay, xagga cadaaladana inaad ka sintid ayaa loo baahan yahay, xagga ludfiga iyo dhimrinta iyo danqashada inaad u wada sintid ayaa loo baahan yahay, oo hal aad ka dhigtid ilmahaaga, oo midba midka kale aadan u exanin. oo waxaa lagaaga baahan yahay dhammaantooda xaqooda inaad hal ka dhigtid. kaasina waa qodobkii 7 ama xaqi 7 oo cunugaaga kugu leeyahay.
xaqa sideedaad ee qodobkeena ugu dambeeyo cunugaaga ama ilmahaaga ay kugu leeyihiin waxaa kamid ah adducaa calayhim. waxaa loo baahan yahay inaad ilmahaaga u duceyso mar walba oo mar walba ilaahay u barisid. qodobkaasna waa qodobka aan aadka ugu liidana haddii aan nahay waalidiin. saa daraadeeda markasta waxaa loo baahan yahay cunugaaga inaad ilaahay u barisid xaalad walba ama dhib walba uu ku sugan yahay inaad ilaahay aga barisid. markasta waxaa loo baahan yahay marka inaad ilmahaaga u duceysid, cunugaaga aa markasta ilaahay u barisid, toosnaana ilaahay aga barisid. cunugaaga inuu ilaahay kuu toosiyo inaad ka barisid ayaa loo baahan yahay si ilaahay uu noogu toosiyo. waalidka sidiisana cunugiisa hadduu u duceeyo ilaahay wuu aqbalaa. waxyaalaha ku anfici doona markaad dhimatidna waxaa kamid ah walad saalix oo adduunkan aaga tagtid ayaa kamid ah oo kuu soo duceeya markaad dhimatid, sidoo nabiga noo sheegay sallallahu calayhi wasallam. aw waladun saalixun yadcuu lahu, waa cunug wanaagsan oo markaad dhimatid kuu soo duceeyo. cunugaasna waa cunug adiga aa u duceysay markaad nooleed oo ilaahay aa markasta u bari jirtay, toosnaantiisa iyo wanaagiisa aa ilaahay mar walba u weydiin jirtay. cunugaas marka sidaas u wanaagsan haddii aa adduunka aga tagtid adiga ayuu ku anfici doonaa oo kuu soo duceyn doonaa markasto. kaasina waa qodobka sideedaad ama xaqa sideedaad oo cunugaaga kugu leeyahay. markastana waxaa loo baahan yahay ilmaheena inaan u duceyno. insha allah walaalahayga qaaliga 8 arrimood aan kuu soo sheegay haddii aad ku dhaqantid aad dhaqangelisid ilmahaaga way ku toosnaanayaan. haddii aad 8 xaq oo cunugaaga kugu leeyahay aad samaysidna ilaahay tala saaro si uu cunugaaga kugu toosiyo uwad wanaagsan oo saalaxna uu ku siiyo. waayo waxa loo ordaya ayaa waxay tahay uwad wanaagsan oo ku anfaco inaad dashid oo saalixiin ah. insha allah tacabkaaga yuusan noqonin tacab lagu qasaaray. ku dadaal ilmahaaga. hantida ama maalka aad leedahay maanta ayaa wuxuu yahay awlaadaadana ku dadaal si aad u dhisi lahayd jismigooda iyo ruuxdoodaba si aad u dhisi lahayd cunug wanaagsan oo saalax oo ku anfacana adduunka naga tag. insha allah waxaan kusoo qatimeynaa qisadan yar oo gaaban ayaan kusoo qatimeynaa si ay noogu noqoto tusaalo. xilligii Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa nin u imaaday, ninkaasoo ka dacwoonayo cunugiisa inuu ku caasiyay aga dacwoonayo ayuu u yimid. markaas wuxuu yiri Cumar oo cunugeyga ima maqlo oo caasi ayuu igu yahay ee maxaan sameeyaa? cunugiisana isla meesha ayuu taagan yahay. cunuga ayaa soo booday markaas wuxuu ku yiri yaa amiirul mu'miniin, amiirkii mu'miniintow soo cunuga kuma lahan waalidkiisa xaq. Cumar ayaa soo booday markaas wuxuu yiri nacam xaq uu ku leeyahay. cunuga ayaa soo booday markaas wuxuu yiri waa maxay xaq uu cunuga ku leeyahay waalidkiisa? Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa cunuga u jawaabay markaas wuxuu ku yiri xaq uu cunuga ku leeyahay waalidkiisa waxaa kamid ah inuu u dooro hooyo wanaagsan, magac wanaagsanna uu u bixiyo, quraankana uu baro. cunuga ayaa soo booday markaas wuxuu ku yiri halahaasba iima uusan sameynin, hooyo wanaagsanna iima uusan doorin, hooyaday waa mushrikad oo dabkeeba caabudaa, magaceygana magac wanaagsan maba isiininba oo wuxuu ii bixiyey jucal ayuu ii bixiyey. jucalna waxawaaye waa midka bahalka wasaqda wareejiya oo loo yaqaano xaarwalwaal. quraankana hal xaraf maba iga barin ayuu yiri. Cumar bin Khadaab ayaa ninkii u jeestay markaas ayuu wuxuu ku yiri iga tag, cunugaaga intuusan kugu caasinin adiga ayaaba ku caasiyay. meeshaas waxaa noogu soo baxayo ilmaheena inay nagu leeyihiin xaq weyn, inay nagu leeyihiin xaqa anaga aan ku leenahay intaan la gaarin ayaga ayaa xaqooda horeeyo. xaqooda markaa ayaga siino aan halahaas aan u sameyno kadib ayaan anagan xaq aan ku leenahay. marka intuusan cunugaaga kugu caasininna adiga ha ku caasinin oo noqo marka ugu horeyso waalid wanaagsan oo garanayo ilmaha uu dhalayo, waayo ilmaha waa masaakiin waxay kala ogyihiin malahan. cunuga waxaa lagaaga baahan yahay markiisa horeba inaad wanaajisid oo wadada u soo maraysid aa u wanaajisid, xaqiisa iyo xuquuqdiisa uu kugu leeyahayna aad ka soo baxdid si uu adig kugu noqdo birito mid baari ah. insha allah walaalahayga qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen ama aad ka faa'iideysan doontiin 8 xuquuqa idiin soo sheegay oo uwadkaaga uu kugu leeyahay. insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa uwadkeena inuu noo wanaajiyo oo uwad baari ah noogu dhigo.
meel walbo muslimiinta ay ku nool yihiin ilaahay ubadkooda ha u wanaajiyo oo haga dhigo ubad saalix ah. subxaanaka allahumma wa bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.